agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana uu dhagax dhigay dhismaha wajiga labaad ee taawarada leerka cadceedda ku shaqeeya kaasoo laga hirgelinayo xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood waxaana munaasabada kooban ku yeesheen xarunta maamulka dawladda hoose waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood odayaal waxqaad iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn doo halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ugu horeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta waxa sheegay qoladii ugu horeysay waxa weeyaan 75 cusub iyo 60 hore oo hore ugu yaalay iyo gaarigii lagu dalaacay lagu toosinayay intaas boorto mashruuc ka kooban yahay saddex qaybood waxaan anagu ugu tala galnay in degmada Laascaanood ay la tartanto gobolada inteeda kale maanta idinku nimin waxa weey mar kale in maanta magaalada lagu wareejiyo wixii lagu dayactiri lahaa lagu fuulayay muxuu ahaayeen bahalka qodobka saddexaad ku soo gabagabeynaya ee maanta safarkaygu daarna waxa weey markii la arkay faa'iidada kuwii hore isla markaana loo wada joogo dayactirka kuwii hore muxuu ahaa hawshoodii iyo qalabkii gaariga lagu dayactiray lagu fuulayay waxa la yidhi maadaama baahida magaaladu sidoo kale waxa halkaas ka hadlay uqaali wax garad idinka waxaanu idin kala dardaarmaynaa oo aanu idinku soo dhaweynaynaa baahida solarka ee iftiinka magaaladuna intaa waa ka baaxad weeye laakiin intii hore noogu qabateen iyo intaad wadaan noo dayactira cid kasta oo wax noo qabanaysana gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu aad iyo aad misna uga codsanaynaa inay waliba sii durkiyaan 75 miyaa la sheegay waxaanu rabnaa 200 oo dambe nooga dhiga magaalada waad ogtihiin aad bay u tarantay magaalada waxa mas'aalaxada ay noo wado wasaaraddu iyo mashruucan tamarta wixii hore noo qabtayna waa ka mahad celinaynaa waxaan dambena waa qaadanaynaa gabagabadu waxa ka soo xiray maamulka gobolka Sool iyo ka degmada Laascaanood wasaaradda tamarta iyo macdanta ay ka fulisay gobolka Sool muxuu ahaayay 2 kiiloomitir iyo 400 oo mitir muxuu ahaayay taas oo noqonaysa tirada laambadaha wax qabadka gobolka Sool ee maanta dariiqyada madowga iftiiminaysan ee solarta ku xiraysan waxaanu lahayd wax garadka ama odayaasha ama blueska odaygiisii gobolka Laascaanood ahay wax tar weyn weeye waana baahi ka jirto gobolka waxa farxad weyn oo ah in halkan aan ku daafurayno mashruuc in badan soo socday in badan aan sugaynay oo ku saabsan nalalkan cadceedda ku shaqeeya ama tamarta ku shaqeeya waxa maalin weyn mashruuca aadka muhiimka ah ee leerka cadceedda tamarta ku shaqeeya ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya inoo keentay taasoo ay ka mid tahay horumarintii uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la rabaa dadweynuhu inay ilaashadaan iyaga waxaan iska leh Farxaan Maxamed Aidiid RTN magaalada Laascaanood